iyadoo maalmihii lasoo dhaafay gobolada dhexe ee waddanka Soomaaliya ay dagaalo ba'an ka dhaceen ayaa wararka soo baxaya waxa ay sheegayaan in xaaladdu iminka ay degan tahay waxaana lagu soo waramayaa in khayladhaan badan ay ka soo baxday qaybaha kala duwan ee waddanka Soomaaliya oo kulan arrimahaasi quseeya ayaa lagu qabtay magaalada London oo ay ka soo qayb galeen dhinacyadii ku dagaalamayay deegaanka Dhegtuur oo ay ku dhinteen dadka tiradoodu gaarayso ilaa 30 ruux tiro kale ka badanna ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi oo la sheegay inuu ahaa mid dadka kala duwan siyaabo kala duwan u saameeyay haddaba shirkaasi ka dhacay magaalada London oo aan ka qayb galay ayaan warbixintan ka diyaariyay dadka ka soo jeeda odayaalka dumarka siyaasiyiinta culimada ka soo jeeda gobolada maamulada Galmudug iyo Xibin iyo Xeeb in aan ka xunnahay dhibka ku soo noqday maalin walba meel deegaanadaas waxaan cambaaraynaynaa waxa meesha ka socda waxaan leenahay Allah u naxariisto wixii dhintay inta dhaawacaan Allah caafimaad ha siiyo waxaan leenahay dadku in ay joojiyaan arinta meesha socota dhibaatada ka jirta dagaalka ah si shuruud la'aan ah in lagu joojiyo iyo isla garteen jaaliyada labada jaaliyadood ee halkan fadhiya in la joojiyo dhiigaas daadanaya si shuruud la'aan in la joojiyo yaan isugu nimay intaasaana isku waafaqsanahay intaasaana rabnaa inaan ugu baaqano jaaliyada meel kasta ay joogto gudaha iyo dibadda khaasatan labada maamul ee ay ka soo jeedaan labada beele in ay dhiigaas si shuruud la'aan ku joojiyaan ayna u horseedaan ummadda nabad iyo nolol waxaan ku baaqaynaa oo meeshan shirkan galabta ka soo baxay in xabad joojin degdega la helo ciidamadana la kala qaado sida ugu dhaqsiyaha badan waxa meesha ka socdana la joojiyo wixii dhintana waa u tacsiyeenaynaa inta dhaawacana waxaan leenahay in Ilaahay ha caafiyo shirkan looga xun yahay dhibaatada ka dhacday dadka walaalaha oo ku dhaqan maamulada Galmudug iyo Xibin iyo Xeeb waxaan ku baaqaynaa in dagaalka la joojiyo dhibaatadaasna intii hore oo dhacday aan wax dambe laga dabageyn ciidamadana la kala qaado waxaan u soo jeedinaynaa dadka Mudug iyo Galguduud dhulka u dhaxeeya ku diriraya oo isku laayay inay joojiyaan xabadda inay ilaahood ka yaabaan oo xabadda joojiyaan oo qofka dhintay Allah u naxariisto qofkii dhintay qofka noolina uu ogaado dambigii uu galay in aakhira aan loo cafinayn marna oo uu naar ku galayo waxaan rajaynayaa insha Allah baaqana soo jeedinay inay ku qaataan macnaha wax macnaha hirgeliyaan kuna joojiyaan dagaalka iyo dhibaatada socota dhiiga daadanayo waxaan ku xunoo runtii mid aad ugu wada xumaan waa dhamaanteen waxaan rajaynayaa insha Allah inuu ku dhamaado nabad iyo macnaha is-afgarad meeshaan dhowr kun oo qof baa bannaanka dhooban dad yar baan ku hadlaynaa waa gaarsiin weynaa idaacaddii in la wada dhegaysto waxaan kugu baaqaynaa inaad dagaalkaas dagaal ceebeed weeye inaad joojisaan nin balaadaah oo waxa la yidhi aan garta laga heli jirin baa la su'aalo waxa la weligaa lagaa gar helay walaalkiis baa ilaa waran uga sidbadoo gacantiisa ku dhintay waxaa iga gar helay yidhi dad ninkii yidhi walaalka dila kelmadaan u celiya waa garan waayey hadda hadday galabtay dadka qaarkiis lib la tahay ama magac la tahay raggiina meesha ku dagaalamaya inuu guulaystay ama qof soo dilay ceeb baad gacanta la gasheen meeshaan shir dheer baa ka soconaya intii muddo baaqi laydin soo jeediyay u dhaga fududaada ceebowde qaata nabadda waxaan baaqan halkan laga jeedinayo oo shirweynaha labadan beelood oo meesha isugu timid dhibaatada dhex madhay ay jeedinayaan ayaan la qabaa hadalku hadda waa hadheer iyo hadhow hadalkii hadhow la is odhan lahaa waa loo dhiman yahay hadalka hadheer iyo xabadda ha la joojiyo weeye dhiigga bilaashka ku daadanaya ha la joojiyo wixii dhintay Allah u naxariisto inta nool in la badbaadiyo weeye bilaa shuruud waxaa leenka codsanayaa dagaalka inaa iska joojisiin xisaabtana ka dambayn doona caqliga ka dambayn doona nabada ka dambayso waxaas in la xusiistaa la doonayaa in waalnimo la isku dilo diintuna ma qabto islaamnimadu ma qabto iska joojiya waana la soo socdaa waa la xisaabtami doonaa waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan haddii la yiraahdo u tacsiyeenaynaa dadkii la aday oo sabab la'aanta ku la aday oo la isku laayay baan horta ka tacsinay inta dhaawacana Allah baskeeyo
inta kaleetana waxaan leenahay war dadka kala celiyo ilaahay ka baqa aad iyo aad baan uga xunnahay aad iyo aad baan uga xunnahay dhibaatadaas daba joogga ah oo walaalkii dilaha ah oo dhibaatadaas maalin walba dhacaysa oo waxay u dhacaysa aan la garanayn oo dad waaweyn oo aad u kala duwan ay fiirsanayaan aad baan uga xunnahay waxaan soo jeedinaynaa oo aan mar labaad ku celinaynaa in la joojiyo dagaalkaas dhibaatadaas in laga joojiyo dadka ilaahay waxaan ka baryaynaa taqwada inay badiyaan qofku hadduusan taqwo lahayn qof jira ma ahan taqwadii baa ka maqan dadkaanu waa dad walaalaa nin walba ninka kale dhiiggiisuu ku hinraagahayaa wuxuu u dilahaya ma garan xayawaanku waxay isku dilaan inay isku noolaadaan war adinku maxaa isku dilaysaan ma isku dul noolaanaysaan ma baahi baa idiin haysta jiirka qofkan walaalka ay dhiiggaanad ku dubaalanayso waxaan baaq nabadeed u soo jeedinaynaa nimayow tii hore aragnaya tan dambe nabad ilaahay ha ka dhigo gabdhahaan la hadlahayaa gabdhaha meel kastoo ay joogaan laasim way maqli doontaane waxaan u malaynayaa waxaan meesha ku ba'ahayo ku dhibaatoonahaya hooyaa dihatay adinkaa dihday oo dhibaatadu idhaysa xanuunkuna idin hayaa inta ku xirataan madaxa maracad meel kastood joogtaan gabdhaha labadaas beeloodahow guri walba taga deegaanka taga dadkaanu ma hayaan communication wacyigelin ma hayaan inta badan war baan gelin annaguna waa soo dadaalaynaa insha allah haddii ilaha yidhaah laakiin gabdhayahow ka kaca hurdada waxa go'ahayaa waadinka waxa go'ahayaa waadinka waxa go'ahayaa waadinka waxaan la hadlayaa dhalinyarada qoryaha sidata wiilasha dhalinyarada qoryaha sidata sababta u leeyahayna waxa waaye odayaashu wax badan bay shireen wax badan bay dhaheen waa heshiinay mar walbana waadinka waxa la adeegsanayo hadda shirkan waxa ka soo qayb gashay 1,000 qof ku dhawaad waxaana soo abaabulay wiilal dhalinyaro ku dayda ayaga adinka waaye wax mustaqbalkiina la baabiyanahay oo maaragtay maalin walba nin intuu meel fariisto uu leeyahay orod soo dagaal gal intuu qori ku dhiibo waxbarta oo mustaqbalkiina ha dhaafsanina maaragtay inaad dad dishiin waxaan kaloo u soo jeedinayaa dadka islaamka ah meesha jooga waxaan afiirsanaysiin inaa wax ka qabatiin waajib bay idinku tahay waxaan tacsi u dirayaa dadkii dhintay allah u naxariisto samri iimaan allah naga siiyo waalidiinta ay ka dhinteenna samri iimaan allah ka siiyo waxaan idiin sheegayaa inaad tihiin dad isku hooyo ah isku aabba ah wada dhashay waxaan idiin baaq inkugu dareennaa inaad joojisaan dagaalka iyo xumaanta aad wadaan runtii waxaa soo qabangaabiyey dhalinyaro ka socotay labada maamul ee galmudug iyo ximan iyo xeeb ku abtirsada oo iyagu iska xil saaray arintaa dhibaatada socota inay joojiyaan u yana yeeray qaybaha kala duwan ee bulshooyinka dega mudug iyo galgaduud gaar ahaan kuwa ku abtirsada maamulada galmudug iyo ximan iyo xeeb ajanduhuna wuxuu ahaa in si degdega loo joojiyo dhibaatada halkaa ka socota isla markaana labada maamul iyo dadka ku abtirsada ee halkaa dega ay labaduba ka qayb qaataan sidii loo istaajin lahaa dagaalada iyo colaadaha halkaa ka jira ee ay ku baaba'ayaan dadka walaalaha ah ee waxgaradka ah ee halkaa wada dega oo aan iyagu wax ay galabsadeen aysan jirin isla markaana tacsi loogu diro dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay intaba